saddex baa mucaarad ka dhibto ciidan baa la dhisay dhagtooda uma maqasho wasla faana Soomahan sidoo kale qodobka labaad wadaniyadii baa soo laabatay oo qabiilkii waa laga raayay markii maqlaan ma joogi karaan meel baa gubato qof walba raggan waxa gubto qabiilkii waa laga raayo wadaniyadii baa soo ifbaxday waa dhibtaa shanta qodob ee wali madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee shacabkiisa ku jecel yihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadaga qaaliga ah waqti kasta ee ku tahay wanaagsan oo wacan waa mar kale ee video kale aad u qurux badan fadlan hadda nagu cusub tahay page-kan follow dheh oo like garay sina share garay barnaamijkan haduu ku soo gaaro miiska waxa inoo saaran laba qodob oo aad iyo aad u muhiim ah qodobka koowaad waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shanta qodob ee wali shacabkiisa ku jecel yihiin sidoo kale saddex baa mucaaradka dhagtooda dhibtay inay maqasho intaas waxaan kugu hayaa barnaamijkan qodobka koowaad aan ku horeey doono waxa noqon doonaa shanta qodob ee wali madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee shacabkiisa ku jecel yihiin kow waa imaaraadkii oo dalka laga ceeriyay labo dhisidii ciidan xooga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan haday noqoto amniyaadka haday noqoto ragii furmii hore joogay sidoo kale in ka badan 24,000 oo ciidan ah mushaaraadkoodii aan la bixin jirin meel ay ku socotaan la gara waayay balse dib loo soo celiyay nin kasta oo ciidanka maanta kamid ah inuu mushaaraadkiisa ku helo si akoon u gaaran uu ku helo sidoo kale dib u soo celintii qabkii Soomaaliyeed ina la jaan qaadna adduun weynaha ayaa dib ugu soo laabana maantii waxaan la tartamnaa waxay tahay waa adduun weynihii sidoo kale waxyaabo badan oo aan suubi jirin ayaa maanta suubinaa oo dalkeenu ku hormaray sidoo kale shaqaalaha dawladda ee u shaqeeya shacabkoodii oo lagu la xisaabtamo shaqadoodii taasina waa mid loo wada jeedo waa shanta qodob ee wali shacabkiisa ku jecel yihiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kale waxaan ku hayaa saddex baa mucaarad ka dhibto ciidan baa la dhisay dhagtooda uma maqasho wasla faana Soomahan sidoo kale qodobka labaad wadaniyadii baa soo laabatay oo qabiilkii waa laga raayay markii maqlaan ma joogi karaan meel baa gubato qof walba raggan waxa gubto qabiilkii waa laga raayo wadaniyadii baa soo ifbaxday waa dhibtaa taasi waa mid loo wada jeedo waana xaqiiq dadka u wada jeedaan sidoo kale qodobka ugu dambeeyo fargelinta ay nagu hayeen Kenyaatiga iyo Imaaraadka ayaa dib iskaga celina calashan wayna u istaagnaa iska celino dhagtooda waa dhibtaa waa saddexda qodob ee raggan wali ay ka kabsan laayihiin ee dhibaatada ay ku hayso fadlan haduu ku soo gaaro videogan si share garay oo like garay sidoo kale waxaan ku hayaa waxay maanta ka taagan tahay ragii mucaaradka ahaay inay yiraahdaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lama tartami karo because of quwadii oo lahaay ayaynu aragnay tartan lama gali karo waa inuu iska casilaa tartankii ay hawshu maraysaa sheeko bay dhashaa taasi waxaan kaga hadli doonaa barnaamij u gaar ah balse waxaad iga haysaa maanta waxay tahay shanta qodob ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wali ee shacabkiisa ku jecel yihiin iyo saddexda qodob baa mucaarad ka dhibto waad iga haysaa xaqiiqada waxa ay tahay waa mid loo wada jeedo fadlan hadda nagu cusub tahay page-kan follow dheh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته